السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين هارون iyo mar kaleetood maanta waxa inoo wadaa qiso aan ka akhristay buugga tobanka furo ee guusha buuggaas aan ka akhristay marka qisadiina waxay ku bilaabanaysaa sidaan ii ongolow inaan kaaga qisoodo ama kaaga sheekeeyo wiil yar oo u tagay mid xigmad ragga ugu xigmada badan si uu ugu barto sirta guusha. Wiilkii yaraa xigmad badanihi maxay tahay sirta guusha lagu gaadho? Xigmad badanihi sirta guusha waa doonis adag. Wiilkii yaraa oo halkee ka timaadaa doonista adagi maxaana dhaliya? Xigmad badanihi doonista huraysa oo holcaysa sida dabka. Wiilkii yaraa oo sidee ayay inoogu dhalanaysaa doonista adagi? Xigmad badanihi wuxuu ka idin dalbay wiilkii yaraa daqiiqado yar, wuxuuna soo qaaday weel aad u weyn oo biyo ka buuxaan. Markaasuu wiilkii yaraa weydiiyey oo ku yidhi, ma iga hubtaa inaad doonaysid inaad ogaato waxa dhaliya doonista adagi? Wiilkii yaraa haa, wuxuu xigmad badanihi ka dalbay wiilkii yaraa inuu weelka u soo dhawaado kadibna fiiriyo. Wiilkii yaraa oo fiirinayo ayuu odaygii si lama filaan ah wiilkii yaraa intuu madaxa qabtay ugu maquuray biyihii ku maquuray dhowr ilbiriqsi ayuu sidaa ugu hayay. Kadibna wiilkii yaraa oo markuu neefsan waayay ama naqaska ku dhegay ayuu si degdeg ah wuxuu awoodu lahaa oo dhan isticmaalay, isagana furfuray isagoo cadhaysan oo xanaaqsan oo ku yidhi, eheye waa maxay waxaad samaynayso? Odaygii yaraa ayaa isagoo degan oo dhoola cadeynaya ku jawaabay, maxaad ka baratay tijaabadan? Wiilkii yaraa ayaa wuxuu ku jawaabay, waxba kama baran haba yaraatee. Odaygii yaraa ayaa intuu wiilkii yaraa fiiriyay ku yidhi, wax badan baad ka baratay. Daqiiqadihii ugu horreeyay waxaad doontay inaad madaxaaga biyaha ka saarto, laakiin doonistaadu ma aynan ahayn mid xooggan, mana aadan wada isticmaalin awooddaada. Laakiin ugu dambeyntii markii halis gashay, waxaad isticmaashay awooddaada oo dhan si aad naftaada u badbaadiso, waanaad ku guulaysatay arrintaas maxaa yeelay cidina awood uma lahayn inaad ku hor istaagto. Haddaba wiil yahow, markaad doonistaadu gaadho heerkaas waxaad gaadhi guul. Waxaan qisadan ka faa'iidaynaa in doonistu adagu ay tahay qaacidada ugu horreysa ee guusha lagu gaadhi karo. Waa abuurka miradhka oo dhulka guusha lagu beero. Sirta guushuna waa dhaqaajiye ama inaad hesho wax ku dhaqaajiya. Marka qisadii sidaas ku dhamaatay. Af Soomaaliga haduu igu adkayn iga raali ahaada, aniga afkayga iska jabsaday.